iyadoo meel xasaasiya uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali galbeed haatanna loo yaqaano gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa taliyayaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay kharajiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga taariikhyahano iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83 dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow deegaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyayba waxay muujinayaan in dilkan uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978 Generaal Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hogaaminaya howlgallada waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore dagaalka laguna soo celiyay magaalada Muqdisho laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto qaar baa ciidamada taliya oo frontiga ciidamadii ku jiray fronta Jigjiga jinacsanay ilaa iyo dhinacaas Jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray anagu ma aqaan saxeexay ma salxaan baa taliya qayba ma sawantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ma geel saxeexay oo ahaa bandiyii ciidamada saddexdooda meesha ay joogeen telegram saasa loo diray ayaa la diray oo la leeyahay ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay discipline ka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa taas waa la soo qoray ayagu awar tirama horma ay cayimaan 83 bay noqdeen wixii taliyayaashii ay soo qoreen oo garaado kasta leh yaani oo saraakiil xigeen oo saraakiil ku jiray dhinac baa lagala maraacay mishiinka lagala raacay banaan cad meeray u cararaan male finish halkaas 83 ba lagu dilay dalacaadi sidaas ay noqotay sababtu maxay ahayd sababta ayaga og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fikradaas inay Maxamed Siyaad ka socotay asaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado midowgii Sovieti waasoo baxay oo dhan ay meeshii soo qareysatay ayaa la iska dhaadhiciyay ciidankaas oo soo jaba hadduu soo noqdo waxaan iska dhaadhiciyay umaleynaya hadduu soo noqdo meesha waa ku inqilaabaya waa ku eriyayaan meesha laga qaaday Korneel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaaficda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socotay ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyay oo uu arkayay inay ahaayeen kuwo halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istiraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyay ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegay ciidanka Soomaalida waxaa jibiyay ciidankaas qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiisto oo aad rasaas la'aan dhigtay oo aan raashin ku weydiistay oo aad raashin la'aan dhigtay ciidankii ma adiga taliyaha ahaa jibiyey oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibiyey adaa jibiyey war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotage ma garan markaa iyada okay gadaal baan ka gartay miyo waaye minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad si ka hadli kartaa minjaxaabinta dadka mas-uulka ka waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay oo ay ka mid yihiin haddii markaas yaa na xukumay aniga cid ka maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxaa joogay mataqaanaa samatar laakiin hebel kuma dhahayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in la isku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga ahayn laakiin dhalinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootiga liisoo diraya arrintan lama socdaan gaashaanle sare Daawud Cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo Baadham 3 waxa uu xilligii dilkan uu dhacay oo ku sugnaa degmada Galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyay saraakiishii hoosta ka qorsheynaysa inqilaabka gaar ahaanna gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro oo ahaa taliyihii kulmiska Jigjiga arrintaas waxa hogaaminayay
oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeedaba lahay ninka cere la yidhaha laakiin waa lala aqbalay ma garata waxaa jirto mahmaah oo Russian ah oo la yidhaaho kacaanka waxa dilay kacaan diid wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka min haddaan kuu dilciyo ninka wadaniga waxa dilay wadani xume wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga marka taasay aheeday dawladda waa lagu dilay laakiin waxaa lahay dilka ninkaan kuu sheegay kabacdina dilku soo dhacay dilka de wuxuu dhacay waa la isku yiri goorbarqa beebeyaal iyo waxba lagu wareejiyey waa la rigeeyey kala baxaa la yidhi hal tilaab horay gadaal waa kow laba oo kale kowna waa la dilay labana waa la dhaafay saas wuxuu dhacay dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay ka soo baxeen waxay sheegaan in markii dilkaas u dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaatay fikradaas ma qabin aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toobasho lagu xukumay oo badbaaday laakiin oo nimankii catiir iyo sufurdhaare iyo magartay bayid iyo oo hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday marka aniga naftaydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax lamid ahna ka badbaadnay ma garatay marka jawi iska kacsan oo ahay saba ciidankaasi la laayay ma waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeyay ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aan ka qaatay sababta loo dilayse ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka Soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi military oo saraakiisha qaarkood qorsheynayeen mise waxay ahayd sirqool ay ka dambeeyeen midowga Soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada Soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada Soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska Jigjiga oo ahaa kan jiidiisa uu ka dhacay dilku gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka Garab Case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi Generaal Maxamed Cali Samatar sidan waxay ahayd intaan ka hooseysto ilaahayna hanagu toosiyo khaladana hanaga diyo Jigjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad weydiisay dhici doonto ciidamo badan baa ka soo baxay difaacyadii hore askaro badan baa iska soo hadqanay magaalada Jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhigga iyo tiim la socda Maxamed Cali Samatar marka maadaama ciidamadaasi amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada Ethiopia xarunta u ahaan jiray buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey Garab Case markii la fayliyey ciidan door ay noqdeen oo ilaa 2,000 iyo boqolaalkaas waa khaldi karaa laakiin 2,000 waa huba boqolaalka 200 baan filayaa inay qiyaastayda hadda aday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay wasiirkii gaashaandhigga go-aan buu qaatay ciidamadana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yidhi saftay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo wada saraakiishoodu way hortaagan tahay kuwixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yidhi sida koob ha lagu sameeyo 1, 2, 3 ha laga bilaabo lambarka 30aad qofka soo noqda xagga ha loo saaro wadankaas kuwa kale inuu dadkii u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara oo iyagu lambar 30 dooni u galay ma jirin wixii 30 noqday doonaa loo saaray ciidan adigu 70 qiyaasayda hadda anigu 1, 2 goobtii ma dhihin meeshata waa jira wixii ciidan 70 oo 30kaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad casa iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad casa waxaa layidhi ku fura rataas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka dhacay marka amarka toogashada ma Maxamed Cali Samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday hadda wada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba xiriirkooda joogtu ahaa kolley waa kala warqaadanayeen laakiin anigu hadee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen aniga sarkaal caadiyaa iska ahaayo markii wada hadlaya badanaaba goobsoo kale aanu noqon jirin caadi maana ahayn
xataa waxaa joogay nin golaha saraada meesha joogay magaalada markaa joogay oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseeyaano ilaahay ha u naxariiste cabdirasaaq maxamuud abubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jigjiga ahaa laakiin hade markaas waxaa toogashadu dhacaysa iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayd isagii markaa politician buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo generaal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan galaal markaas iyada waktigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagoo awalna markii hore dirir dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buuba jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka hawlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga baanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagana nagama bixin amarkaasu iyo furuntiga iyaga amarkaasu kama bixin namana soo marin gaashaanla sare cabdisalaad cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo aniga waxay ila tahay wixii iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynmayo sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyadeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa si raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaluu mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay ku-xigeenkiisiina waa lahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kala joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fogogaalnama noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay laakiinse gaashaanla sare maxamed ibraahim guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaar nasiib ah lagu soo xulay nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebelaa ka dambeeye ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotage ciro iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen samatar doonta oo fuuli duleelin maayo maxamed siyaa doonta oo fuuli duleelin maayo ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay saraakiishaana loo laayay ninna mataqaanaa samatar u dhiibaa so maxamed siyaad u dhiibaya see mataqaanaa yani maarag annaga waxbaba maanan ogeyn iska dhaafay joobaniyaan iska een dhalinyare waxbaba aan la socon laakiin nooy abyaamo beensahato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yiri war say ku dhacday arrintaas sabotaaj baa waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diiday baabuurta liiga wadanayo haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda soomaaliya ee xilligan joogtaa ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta soomaalida ah sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu waraystay barnaamijkani waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaar nasiib ah loo soo xulay haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah haddaba ma tahay in dowladda soomaaliya ay eheladii dadkaasi raaligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duleedka garab case gaashaanla sare guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi waxaana isaga iyo gaashaanla sare daawud cabdullaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raaligelinba laga bixiyo nacam crime waa crime dad la laay macna darri loo laay ciidan ahaa in lagu fushada dan lalahaa waan ayaga dembi gelin waayo ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya waa la kala tegayaa saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maarag qalin awataya ku jiri dadkaan la laayay waa saysan dembi weyn
taana daliilkeeda harun waxaa ku 40 casho kadib cere waa la toogtay 9 abriil oo dhacay mataqaana maxaan ku yiraahdaa inqilaab ayaa la sameeyay isla markii waa duulay mataqaana ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan la isaaminaynin oo nin walba mataqaana yani maarag mas-uuliyadiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay 9 abriil oo ku dhuftay sideeda kiyaaraskuus wayel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay way marka in la magdhawo oo la xasuusto way mudan yihiin aaday u mudan yihiin magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yiraahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya harun waa mudan yihiin dilka askartaasi waxaa daba socotay khaarajin loo geystay qaar ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto Muuse Muumin Meydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan Maxamed Soomaali Cabdi Faarax Cali iyo Juuni 9 bishii Maarso 1978 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii Soomaali galbeed bil kadibna 9 bishii Abriil 1978 waxa afgambi dhicisoobe sameeyay saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro iyo gaashaanle sare Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgambigaasi uu qorshaysnaa inuu dhaco 12 bishii Abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse uu soo hormariyay gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro kadib markii afgambigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay 20 saraakiil ah kuwaas oo markii dambena la khaarijiyay